في الصومالية باللودة دقائق دبلوماسية كدب سفر كي عبد الرحمن عرو وكنت جاي إسرائيل حق شيء جيسا إن مدحونها الصومالية حسن شيخ محمود حرير هكذا دون لسه الدلال دور كواس أو يكوّد هاللين وليس كدولة دحال الصومالي أي كم وجريسو طلابة إسرائيل سعدالك عبد الرحمن عرو يهشيشة لجو جاريو دلك إسرائيل وكوّد دلالك الله الله مدحونها الصومالية واربحين كوساب سنة يعني يجدونا كل ما حساس يكسر تل أبيب مدحونها الصومالي لان يسدو كله رئيس الوزراء إسرائيل أو حق هو صار جيسو إن ساعده النسوء عندنا يلنا يان كورن علوس يدو كورن كان لقول شيء إن لقول جلايو هالشيء ووي محاكو جرا هذا بقى مدحوين عبد الرحمن عرية مروديسة أو أبح دقي جوب مهم وهذه يهودا ففاهم كوساب سنة يعني يقدرنا دنك كلاو حن يقدرنا مدحوين حسن بوحو كورن لا يرشي معارض ككسو هرجة السعيد عبد الله دني بوتلان hogaamiyaha maamulka waqooyi bari Cabdiqaadir Firdhiye saraakiil General Jimcaal oo qayb ka yahay iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya muxuu ahaasa sawirka lagu baahiyay baraha bulshada intaas waxa dheer kulamo dhinacyo ajaanib ay ka qayb galeen oo ka dhacay filla Soomaaliya kaasoo lagu sheegay wafdi culus oo ka socda dawladda Talyaaniga ganacsatana ay qayb ka tahay inay shir la qaateen madaxweynaha Soomaaliya afar qodobna ay kala hadleen qodobadaas ayaan caaw ku soo koobaya muuqaalkan kula wanaagsan habi wanaagsan qiyaaray waa 14ka bisha June 2026 ku soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsanayna ku bilown kadib safarkii madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cir ee uu ku tagay caasimadda Yahuudda Tel Aviv dawladda dhexe Soomaaliya ayaa la sheegay inay sameysay galaangal diblomaasiyadeed kaasoo diiradda lagu saarayo culayska Xasan uu ka dareemayo iyo dawladda Soomaaliyaba safarka Cabdiraxmaan Ciro iyo joogitaankiisa Tel Aviv sida xaqiijinayaan ila wareejin sugan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh ayaa saacadihii ugu dambeeyay la soo dhaafay qadka telefoonka kula hadlay dhinacyo kala duwan isagoo u sheegay mowqifka dawladda dhexe Soomaaliya dalal Carbeed ayaa ku jira iyo kuwa Islaamiya waxa la sheegay inay walaac xoogan ay ka muujiyeen qaabka uu wajahayo madaxweynaha Soomaaliland iyo sii socoshada cilaaqaadka Hargeysa Tel Aviv xiriirka madaxweyne Xasan dalalka uu la hadlay ee Carabta Islaam ayaa sidoo kale ku soo beegmay xilli culeyskeeda leh madaxweynaha Soomaaliya ayaana wajahaya cadaadisyo siyaasadeed oo aad u xoogan kuwaas oo ka imaanaya gudaha dalka Soomaaliya iyadoo hadda arrinta Soomaaliya ay noqoto qodob kale culeyskiisa leh jiraana muranno sida la sheegay dawladda dhexe Soomaaliya ay u aragto in cadaadiskan lagu yareey karo marka la eego tallaabooyinka la qaaday arrimahaasi ayaa markaas lagu sheegay kuwa suurtagal ka dhigaya inay dhacaan isbeddello waaweyn marka la eego warbixinada iyo sidoo kale wararka helaysa warbaahinteen taas ayaana suurtagal ka dhigaysa marka la eego in dawladda dhexe Soomaaliya ay xoogga saarayso dhowr qodob oo lagu sheegay suurtagalnimada ajandayaal muhiim ah in la dhinac dhigo ma jiro kulan yani go'aan wada jir oo hadda soo baxay laakiin saacadaha soo adanaya lagu wadaa in dalal dhowr ay soo saaraan war qoraal ah oo wada jira kaasoo ku saabsan marka la eego safarka Cabdiraxmaan Ciro Israa'iil iyo sidoo kale doodaha miiska saaran guud ahaan way aan eegna marka Tel Aviv dhacdooyin waaweyn ayaa laga diiwaan geliyay socdaalka madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciro ka muuqata qiiro iyo murugo badan kadib markii uu booqasho taariikhi ku tagay madxafka ee ku yaala magaalada Qudus halkaas oo lagu soo dhaweeyay Cabdiraxmaan Ciro ayaana muujiyay marka la eego qiiro iyo sidoo kale murug fara badan oo ku saabsan arrimaha halkaas ka dhacay isagoo u wax dhigay
goobta lagu xuso malaayiinta yuhuudda ahayd ee lagu xasuuqay dalka Jarmalka intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka taasoo xilli walba hogaamiyaasha booqanaya ay dhagax dhigaan marka la eego fariinta uu soo qaatay madaxweyne Ciro iyo qodobada laga diiwaan geliyay saxaafadda caalamka iyo midda islaamkaba ayaa waxay baahinayaan oo ay hadal hayaan madaxweyne Ciro booqashadiisa rasmiga ah ee Israa'iil ku booqday xarunta xusuusta ah ee Yeed oo ku taala magaalada markaasi barakaysan ee Qudus kuna yaala masaajidka Al-Aqsa Ciro ayaa lagu soo wareejiyay qaybaha kala duwan ee xarunta isagoo ubax xusuusa u sameeyay malaayiin yuhuuda ee markaasi hogaamiyihii Jarmal Yeed waa xarunta islaamiga ah oo Israa'iil u qaabilsan xuska iyo diiwaangelinta ee markaasi dhibanayaashii taasoo la dhihi karo waa qodob marka la eego suurtagal ka dhigaya isbedelo inay dhici karaan dhanka kale muuqaalada la diiwaan geliyay waxa ku jiray madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo marwada koobaad oo la sheegay inay markaasi si wada jira ubax u dhigeen taas ayaana suurtagal ka dhigaysa ee isbedelo waaweyn Qudus Cabdiraxmaan Ciro ayaa intii markaas uu ku guda jiray booqashadiisa rasmiga Israa'iil booqday xarunta xusuusta ah waxaana sidoo kale lagu soo wareejiyay qaybaha kala duwan ee xarunta isagoo xushmad iyo ubax xusuusa u sameeyay marka la eego hogaamiyihii markaasi yuhuudiga lagu magacaabo Jarmajala waxaana xarunta rasmiga ah oo Israa'iil u qaabilsan xuska diiwaangelinta marka la eego warbixinteed taas ayaa muujinaysa culays dhanka kale madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo Marwe Fardowsa Maxamed Rooble oo uu wehliyo gudoomiye ku-xigeenka ururka Sahnuuniyad ee adduunka ninka lagu magacaabo markaasi qabriga ayaa waxa ku aasan sida la sheegay hogaamiyaal loo aqoonsan yahay aasaasihii dhaqdhaqaaq Sahnuuniyadda casriga ah booqashadan ayaana qayb ka socdaalka rasmiga ah ee Cabdiraxmaan Ciro uu ku joogo Israa'iil iyagoo ubaxyo dhigay meelo kala duwan taasoo muujinaysay go'aan marka la eego suurtagal ka dhigaya inay dhacaan isbedelo waaweyn saacadaha soo aadan ayaa lagu wadaa marka kulanka ugu xoogan uu dhaxmaro hogaamiyaha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro iyadoo kulankan lagu sheegay mid xoogan oo diiradda lagu saarayo sida la sheegay heshiisyada la gelayo ee arrimaha difaac sirdoonka ganacsiga iyo sidoo kale qodobo kale waaweyn inta warbaahinta la hadlay madaxweynaha Israa'iil waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Somaliland ay yeelanayaan iskaashi toos ah isdhaxgal bulsho mid diimeed isla markaana hadda ay hawshu ka gudbayso hadalladii iyo bayaanadii loona bedelayo ficil sida uu sheegay Isaac Herzog madaxweynaha Israa'iil marka la eego warbixinta iyo sidoo kale tallaabooyinka la qaadayba waxa muuqanaya in isbedeladu ay yihiin kuwa aad u xoog marka la eego fariimaha ka yimid hogaamiyaha Israa'iil kulanka saacadaha soo aadan dhacaya ayaana lagu wadaa inuu noqdo mid foolka fool ah dhaxmara marka la eego hogaamiyaha ugu awoodda badan Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale hogaamiyaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro kulankaas ayaana noqonaya mid ballaaran oo wada jir waa hagaag dhinaca kale aynu eegno wararka kale ku saabsan arrimaha gudaha Soomaaliya baraha bulshada iyo warbaahinta waxa qabsada sawirro ku saabsan ninka lagu magacaabo madaxweyne Xasan Firdhi ra'iisul wasaare Xamse iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo aba siyaasiyiinta mucaarad sida Xasan Shari Abgal ninka lagu magacaabo Cabdi Samad Galan taliyaha ciidanka danabta Puntland General Jimcaale iyo sidoo kale xubno kale oo kulankaasi goob jooga oo qayb ka yahay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Ali Xoosh inkastoo sawirada hadda la helay haddana sida muuqata waxa la leeyahay waa kulan dhacay markaas maalmo ka hor oo ka dhacay xarunta Villa Soomaaliya kaasoo diiradda lagu saaray mid
lagu jaangoynayo arrimaha siyaasadda Puntland iyo sidoo kale kaalinta xubnahan ay ku yeelan karaan markii dhawaan Jimcaale uu soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu kulankaasi ahaa diiradana lagu saaray qodobo ku saabsan arrimaha Puntland iyo doorka mucaaradka waaye dhinaca filla Soomaaliya markaan eegno kulan kale oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayuu madaxweynaha Soomaaliya kula yeeshay xubno ganacsato siyaasiyiin isugu jiray oo ka socday wadanka sida la sheegay Talyaaniga madaxweynaha Soomaaliya ayaana aqalka ku qaabilay filla Soomaaliya maalgashadayaal Talyaaniga kuwaas oo magaalada Muqdisho uga qayb galay shir ku saabsana iskaashiga ganacsiga u dhaxeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga kulankan oo goobjoogaha danjiraha dawladda Talyaaniga ee Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray xiriirka dhaqaale kobcinta iskaashiga ganacsiga ee labada wadan iyadoo wafdiga Talyaanigu sida la sheegay ay kulankan ku soo bandhigeen aragti ku saabsan maalgashigood madaxweynaha ayaana ku bogaadiyay booqashadooda dalka wuxuu tilmaamay Soomaaliya ay ku tallaabsanayso isbedel ballaaran waa sida uu sheegay isagu maalgashadayaasha ayaa markaas iyaguna sheegay in madaxweynaha Soomaaliya iyo dawladda uga mahad celinayaan fursadaha loo soo bandhigay ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo doorkood taasoo ku sheegay inay tahay go'aan markaasi muhiim waaye haddii aan ku laabano Israa'iil iyo safarka Cabdiraxmaan Ciro falcelino kala duwan ayaa ka dhashay safarka madaxweynaha Soomaaliland iyadoo kumanaan shacab ay ka falceliyeen dhinaca kale siyaasiyiin iyo xubno markaasi falaqeeyaal ayaa iyaguna ka falceliyay iyagoo ku sheegay in arrimahaasi u baahan yihiin qiimeyn dhab waa siday sheegeen wararkaas ayaa qaybtan ugu waaweyn wixii soo kordhay waan idin soo gudbin doonaa ila jooga